آمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد intaas kadib waxaan soo dhaweynayaa insha Allah sidoo kale waxaan soo dhaweynayaa waalidiinta martida qiimaha badan iyo culimadeena meeshaas fadhida insha Allah taala waxaynu u fadhinaa xaflad qalin jabin ardayda Zayle Academy dufcadii labaad iyo saddexaad oo isla fadhiya insha Allah taala intaas kadib quraan baan ku bilaabaynaa insha Allah aayado quraana oo noo akhrin doona arday kamida ardayda Zayle Academy hadda qalin jabinayso kadib waxaa jira video waan idin soo diyaarinay waxaan sheegi lahayn oo dhan video waxa ku soo diyaarinay video waan idin shidi doonaa insha Allah taala arday hadlaysa iyo iskuulka labada sano wuxuu yahay iyo waxa laga dhigto iyo qaabka loo dhigto iyo culimadu hadlayso siin doonaa insha Allah taala intaas kadib macallimiintii iyo shuyuukhdii ka dhigtay Zayle Academy كلمة أرضية قار كمذا كلمة ياسين دون إن شاء الله تعالى مرتي كلا نلا شوفتوا كلمة ليه دون ترويج شيران إن شاء الله تعالى سيروا كله أنت كذب وحنو بحين دونا شهادوين أبال مرنا إن شاء الله تعالى كلا الدول هديا سيهر مر إن شاء الله تعالى أبال مرنتا سيبار كحساسية أوي على طول أرضية Zayle Academy ترتم بكتيرين waxa lagu tartamay yaa la markoo noqonayo imtixaan ahaan yaa la markoo noqonayo yaa ugu goys yar yaa ugu activesan yaa ugu fikrad fiican marka waxaan bixin doonaa insha Allah hadiyado fara badan oo kala duwan hadii aan ku bilaabo qof koo noqonayo hadiyadiisa waxa la siin doonaa umra la siin doonaa insha Allah taala qofkaas ma ogo waa qof ardayda kamid ah imtixaamada la galay ayaamahan oo dhan wuxuu ahaa maaragtay mid qarsoon ay ardayda arkeenin marka saas oo kale insha Allah taala labada dufcaba laba waxa jira umra ba jira yaan kala siin doonaa insha Allah taala intaas kadib waxaan u yeerayaa Suhayb oo quraan ugu furdan insha Allah taala الشيطان الرجيم ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما اللهم زدني علما أي علومات مارتي معلمينتا سكول كلابات سنة Zayle Academy الشيخ أووين أيكو صلوين إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينيدو أرن كلامه أنا ما تيجي هذا ما هالمرينة ولو أنا يرين وأنا السلام يا لمانتي نقطة حنا السلام يا والدك ما لها فكيني للرجالين يا أبتكو ذا يو راني يرادا أما أوز ألبوم اللي جاي مرتب مسأوز ألبوم اللي جاي مقالين كان فكيم أبغى السلام يا إن شاء الله waxaan salaamayaa mashaayikhdii culimada qolada martida inoohay iyo qolada macadka macallimiinta ka ah intaba waxa kale oo inoo jooga jaamacadda aynu hore uga dhawaajinay islaamiga ahayd wafdi ka socda miiska fadhiya iyana islaamiyiin insha Allah xogtoodana waan bixin doonaa dhalinyarada dhowrka sano wax dhiganaysay ama han noqdeen kuwii aan isla bilownay darsigii ugu horeeyay ee masjid tawxiid markaynu asaasaynay ama han noqdaan kuwii dib ka soo biiray intaba way salaamayn insha Allah assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh xafladda dadka la ka soo qayb galay iyana waa salaamayn insha Allah inta kadib runtii hadal badan oran maayo waa hadal badan iraahdo hadal badan ma oranayo laba saddex kalmood oo kaba maranaya insha Allah midda koowaad waxa weeye dhalinyaradan wax baranaysa waxaan rabaa inaan yiraahdo xil weyn baa idin saaran xilka weyn ee idin saarani ujeedadii macadkan asaasidiisa ka dambeysay baa ahayd inaad dacwada iyo diinta u gudbisaan jiilasha idinka yaryar iyo kuwa idin la egma annagu aanan afkooda iyo dhaqankooda iyo baahiyahooda aanan aad u fahmayn horta halka xilwan baa idinka saaran
وعلو بأن الدعوة لو ركتان ومجتمع يبلشده قامين تذا لو ركتان وعدا بأيدا كؤيجين دينتي نود قرن إنسان باهيه لأن يرد قبتين نود قرن إنسان بلشده وحيو بانتين نود قرن إنسان قاب قبل كان الله قد أقمنا وتفهم إنسان Soomaali oo kaliya idin ma baahna muslim qorba idin baahan muslim oo kaliya idin ma baahna dadka wadankan degan oo dhan ba idin baahan u baahan waxaad garanaysaan ugu yaraan islaamka inaad ka fahamsiisaan suurada saxda ah taa idin kaan idin leeyahay anu waxaan ba isweydiinayaa tarada 4 sano kadib maxaa la sii dhiganaya ya 4 sano kadib waxa la sii dhiganaya muxuu noqon karaa qofku waa inuu iswada la rabo wixii inta ka dambeeya oo mas'uuliyadiisa xilkiisa qaato insha Allah ka waxaan leeyahay dhalinyarada dhigatay insha Allah inta kale aan soo xaadirin ee aan nala dhigan jirin ama doonaysa mustaqbalka inay wax dhigato waxaan rabaa inay raado ku dayda oo idina faa'iideysta waqtigu waa isku ordayaa 2 sano marka la yiraahdo dib baa 2 sano loo bilaabay ama 4 sano waxba ka caajisin waqtigu soo iska dhamaaday baad arkaysaa kuwana waa dhiirigelinaya insha Allah ta'ala waxaan leeyahay idinkuna يعني دلالك الله الله gudahaan qodobkayga ugu dambeeya waxa weeye ummadda Soomaaliyeed clip kan ama cajalkan arki doonta insha Allah marar fara badan dadka qurbaha ku nool ama dhulkan ku noolnahay ku nool waxa ka fida suurado aad u qaab daran oo foolxun oo ay ka mid tahay carruur laga qaato ama dad gaaloobay ama dad xumaaday ama maaragtay wax inkaas oo kale tan waa suurad wanaagsan adduunku sida uma wada madooba يعني ما دي رجلنا يقولك قالوا ذا إيه وإحنا مذا لكن حربنا يراهو أدون بسوا موضة مذوبة افتينه بحيانه ويشرا ددونا السنين ويشرا وانا أقول سنونه وناشا عليه الصلاة والسلام وحيني لنبغو اتق الله حيثما كنت ما اللي يالا نشا شفت الله كبر قف يسوق ما كتشوق عاصي نقول كم فاسق وفاجر وضد رجع يسوق تلابيب شوق نقول كم قف منه ونكسن معنا مركب واحد ربعنا يراهضو قف كان اليراد هل كنت شوقة إيه ككلاء مال كلا شوقة بقى وانا أبوح وكحولة يقاب كتقول لقن تعدو سيدا درتي ضد كما يراها كلام لقد ضعونا يوم لأن يراد تاني وحي سوق جيران دينو كلي مبرن دينو كلي ما برن قارب أنا وأرض إسلامها يا ومن الكاس أنا حكوا برنا أرض إسلامها أرياك شوقة ترى قاعد تاجن كو لابو أريا كتشوف قلنا أرده وضعه ملبدا كليه صدق ما لابو طيب وحي سوق جيران تخصصات كبلشده وبهانتها دم بيليه مهندسين انجينيرين بيليه معلمين بيليه دكاتره بيليه dad economic dhaqaalaha bartay beeleeyeen waxa la leeyahay iyo bedago beeleeyeen tarbiya waxa la leeyahay waxa mujtamac u baahan yahay dhan bay ka kooban yihiin shahaadooyinkoodu ilaa kuwa PhD dhameeyay kuwa PhD hadda ku jira kuwa master degree ku jira kuwa bachelor ku jira kuwa ilaa halkaas ay tahay nooc kasto bulshada kamid ah aqoonteedii abeelay waa kaadir aan islaahay hadda iyaguna isku xidmaan wadan kasta oo wadamadan aynu ku noolnahayna intan in kamid laga helo oo ay isku xidmaan inay bulshada Soomaaliyeed bulshada muslimka oo dhan wax ka bedeli karaan dhulkan ay joogaan wax ku biirin karaan dhulkii aynu ka nimeen wax ku qaban karaan waa guul qolada dhalinyarada maamusha macadka waa amaanayn runtii anigu dhowr goor baan meel badan ka amaanay aad u amaanayn dadaalka culimada waxa ka badan dadaalka iyagu bixiyeen baa ka badan jazaakumullahu khayran adoo ma santiin culimada martideeno ana ha soo dhawaadaan dakaatiro Dr. Uthman iyo Dr. Maxamuud iyo Dr. Abdulwali mara waxa wanaagsan halka soo wada istaagaan marka mid kastaba kelmadiisa u jeediyo si sawir ku wada qabtaan insha Allah ta'ala jazaakumullahu khayr assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين runtii hadalka aad u badin mayo waxaan ku soo ururinayaa aad baan ugu faraxsanahay xafladan qiimaha badan ee quruxda badan inaad kala soo qayb galo waxaan filayaa maanta kale
ومالكي هذا وسوق السنة لبا سنة كدي sababtoo qofku wuxuu ugu farxad badan yahay markuu geed intuu abuurto ka soo shaqeeyo soo waraabiyo soo koriyo marka u dambaysa uu mirihiisa gurto maanta marka waa maalinkii aad miraha aad guranayseen annaguna run ahaantii wadinla faraxsannahay sababtoo geedka waxbaanu ka waraabinay malihin geedka annagaa korinay oo kobcinay laakiin waxbaanu ka waraabinay maanta marka inaanu aragno geedkii oo miro dhalay aad baan run ahaantii ugu faraxsannahay sidii runtii Sheekh Abeed uu sheegay waxaad tihiin amalkii iyo future-kii bulshadan Soomaaliyeed ee ku nool wastiga ama qarbiga ku nool noloshu waa qor isu dhiibka soo taqaaniin ciyaartan qoriga la isu dhiibo qofku markuu soo ordo buu markuu daal rabo buu qof kale saaxiibkiisa buu qoriga ku wareejinaya qofka kale qorigii la ordaya qof kale uu sii dhiibaya markaas ilaa meeshii targetku ha laga tago haddii qofkii daalay qorigii ku dhaganaada ka warramo ira qoriga inuu dhiibi mayo aniga la tagay ilaa meesha u dambaysa maxaa dhacaya dhowr talaabo kadib qofkii inuu kufo lagana raayo waa dhacaysa hadda marka idinku dadkii qoriga loo dhiibayay baa tihiin oo hadda mas'uuliyaddii dacwada tii ummadeed future-kii oo dhan annagu hadda qorax sii dhacaysa waan qorax casar joogto qorax sii dhacaysa idinkuna waxaad qorax barqadii joogto iyo subaxdii soo baxaysaa tihiin idinkaa marka waxaa la rabaa inaad la wareegtaan mas'uuliyaadkii tii dacwadeed waa run sida hadda Sheekh Abeed uu sheegay dhalinyarada in badan baa takhasusad kala duwan leh khasab maaha qofku inuu u go'o duruus sharciya inuu dhigo kaliya khasab maaha qofku isagoo takhasusad kala duwan leh aniga hadda profession-kayga shaqadeeda rasmiga ahi waa chemistry baan dhigaa hadda naftigeeda dhigaa jaamacad baan ka dhigaa shaqadeedu maaha inaan masaajid kaliya fariisto waxaa la rabaa qof kastoo idin ka mid ah shaqadiisu isagoo oo wata injineernimada tii dhakhtarnimada tii kale oo maaragtay social science-ka wuxuu rabaa ha noqdo inuu haddana mar walba base-kii iyo foundation-kii lagama maarmaanka uu leeyahay oo diinta uu leeyahay dacwadiina uu xambaarsan yahay dacwadu maaha macnaheedu qofku inuu labiska islaamiga kaliya uu qabo laakiin waa inuu ku xambaarsan yahay akhlaaq inuu ku xambaarsan yahay inuu noqdo tusaale fiican runtii dadkan aynu ku dhex nool lahay ee qarbigu diinta waxay ku qaataan xoogoodu ma aha hadal iyo in lala murmo kaliya maaha laakiin example fiican tusaale fiican inay ka arkaan adigu inaad tahay islaamkii adigoo dhalinyaro ah oo dabaqmaya islaamkii oo dabaqan dhalinyaro gaala ah oo la weydiiyey dabcan soo islaamay oo markii hore dadka islaamka ugu nacab ingiriiska waxaa ka jira xisbiga BNP oo British National Party taasoo kale BNP qaar ka mid ahaa aakhirkii waxay ku soo islaameen inay arkeen gabdho dhalinyaro ah oo college ka dhigta oo xilligay dhalinyaradu ugu firfircooneyd ay tahay gaaladu dabcan xilligaas oo xilliga ay gabdhuhu ay boyfriend iyo wax la mid ah ay yeeshaan oo kalaamyada ay tagaan oo iyagoo aan tegayn oo haddana xijaaban oo markii waa wax lala yaabo runtii iyaga dhaqankooda culture-kooda wax aad loola yaabo markay hoos ugu dhaadhaceenna arkay waxa kale inay jirto diin ka celinaysa iyo wax qofkan u diidaya inay jiraan oo intaa kaliya kusoo islaamay marka waxay u baahan tahay idinku inaad tihiin dadkii loo dhiibayey iftiinka waday xambaarsanaa mas-uuliyaddaas marka maanta ayay mas-uuliyaddii culaysku idiin bilowday run ahaantii hadda waad aragteen dadku koofiyadaha waa tuuraan markay qalin graduationka adhano markaad tuuri doontaan hadhow aakhirka xafladda miyaa ma aqan in mar idinkoo koofiyadihii wada tuuray sawir laydinka qaado bicture laydinka qaado oo taa macnuhu waxay tahay marxaladii ardaynimada baad tuurteen hadda waxaa laydinka rabaa tii responsibility-ga iyo mas-uuliyaadka inaad qaadaan iyo in masaajidadii iyo mu'asasaadkii iyo wixii oo dhan idinku runtii aad baan ugu faraxsanahay ragga hadda dhalinyarada maamulaya waa jiilkii labaad wey macadka saylici waxaan filayaa jiilkii qadiimka ahaa waxaa idinkala jooga sheekadii baan isleeyahay weli xoogaada waa iga dhalinyaryahay baan u malanaya da-da
wuxuu u qaatay gandarro u qaatay inuu da'weyn yahay laakiin isagaa idinku haray wixii jiilka qadiimka ahaa jiilka marka cusub masjid tawxiidna inay la wareegaan iyagaa la rabaa oo saadka la wareegaan sababta dacwada hadda waxay u baahan tahay in digital hadda inay hadda marxalad baa lagu jira casr baa lagu jira casrkii hadda digitalka dhan ma fahmi karaba dadkii qadiimka ah sida wax loogu gudbiyo ama dadka communication loola sameeyo hadalka waa dheereeyay hal ahaada runtii aad baan ugu faraxsanahay waxay iga keenaysaa hadalka inaan badiyo ama uusan ii organize garaysnayn farxadda aan dareemayo iyo ardaynimada iyo xafladan quruxda badan iyo qalinjabintaas inta koofiyadda in anagana naloo xiro runtii oo ku fiicnayd waa la soo xiraa koofiyadaha hal mar baan anagu next time waxaan rajaynayaa inaad gawnkiina inta ku dartaan la huwanayay inta macallimiinta ana mid gaarad oo midab gaara laad siinaysaa iyo koofiyada gaara oo markii halka aanu soo istaagno aanu anaguna farxaddii aanu dareeno hal mar hadhow iska wada siino aad baad mahadsantihiin jazaakum allahu khayr waa intaasaan kusoo koobay sheekh khawri mahadsan yahay waxaan ku xojinaynaa insha allah tacaala sheekh cusmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo xafladan runtii aan kula kulmay wax aan dhihi karo meel aan ku arkay hadda ka hor ma jirto waxaa ilaahay mahadiis ah in Zaylici Academy ay soo saartay dhalinyaradan faraha badan oo intaan imtixaanka ku jirnay runtii aan dareemay ama arkay wax haddii si kasta la iga sheekeeyo aanan fahmin waxyaabaha cajaa'ibka leh oon arkay waxaa ka mid ahaa qoys ilmahoodii wata oo imtixaan galay haddana soo bandhigay qoraalladii ay sameeyeen iyagoo ilmahoodii wata wax cajaa'ib ah oo markii koowaad oon arkay wiil iyo gabar isqaba oo wax wada barta haddana isku loox ah oo cashar isla soo jeediyey cajaa'ibkii aan arkay waxaan runtii la kulmay gabdho Soomaaliyeed oo aad runtii is leedahay 10 sano ayaa wax la soo baray iyagoo dalalkan ku dhashay ama ku koray luqaddu aysan ay wax ku qorayaan luqadoodii ahayn dhaqanka ay meesha ay ku nool yihiin iyo jawiga ay ku nool yihiin iyo luqadda ay ku hadlaan kulli ay ka soo horjeedo waxa ay qorayaan waxyaabihii cajaa'ibka la waxaa ka mid ah laba gabdhood hadda kulligood waxay ahaayeen dad runtii qof walbaaba xul yahay laba gabdhood oo isku dayeen qaacido fiqhiya oo ay barteen inay marka hore sharxaan diin ahaan kadibna aysan wuxuu iska noqon wax un laga sheekeeye qaanuun mindhaa dalka ku soo socda oo ah in niqaabka la mamnuuci doono qaacidadii ku fiiriyeen inay xalaal tahay inay xaaraan tahay iyagu miisaanka isticmaaleen kadibna go'aan gaareen weliba iyagoo weliba aan aad ula socon fatwo intaas jeedo aad u dheer faraha ka qaadeen waxaan la kulannay gabdho tusaale ahaan iyagoo aan dal carabeed tegin luqadda tusaalahaan carabiga gaar ahaan qaybta naxwaha qoraalle ka soo sameeyeen oo sida ay u nidaamsan yihiin aad is leedahay dadkii 10 kitaab dhameeyey ma samayn karaan waxaan la kulmay wiilal dhalinyaro ah oo runtii markaad magaalada ku aragtay aad u malaynayda inay aysan kitaab diin baran laakiin markay casharadooda soo jeediyeen aad runtii aad yaabeed waxa aan ku aragnay macahadkan waxay ahaayeen wax runtii aan la soo koobi karin aad iyo aad aan ugu faraxsannahay waa dad astaahilay runtii in abaalmarin kasta oo suurtagal la siiyo
waxaa iyaguna runtii aad iyo aad in loogu mahad celiyo oo shahaado la siiyo gaar ah astaahila maamulka machadka Zaylici oo iyagu ilaahay ka sokow suurto geliyeen in dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka faa'iideystaan diintooda waxa la idinka rabaa saddex heer mas'uuliyad leh ayaa idin sugay waxa idin sugaa naftiina inaad diinta u baratiin waxa idin sugaa dadka muslimiinta ah inaad diintii gaarsiidin waxa idin sugaa dadka loo yimid oo runtii dadka soo dhaweeyay waxay idinka sugayeen inaad adinku cayl bixidin ma hayn inaad diyaaradaha sida loo sameeyo bartiinna ma hayn wax ka qaalisanad seetiin oo qaali ah oo ay ahayd inaad adinkuna soo kordhidin iyagu intii ay hayeen waa idin siiyeen adinkuna inaad intaad haydiin aad siidin ayaa la rabaa oo wanaagiinu uu iyaga gaaro iyaga wanaagooduna oo idin soo gaaray waxaa la idinka rabaa culimadii hore oo Soomaaliyeed oo dalka timid raggoodii dhalinyarada ahaa waa raggaan anigu aan isleeyahay dhalinyaradoodan ku jirnaa hadda 70-kii alxamdulillah weli ma gaarin marka waxaa la rabaa dadkii mas'uuliyaddii culimmada Soomaaliyeed ee dalkan timid mas'uuliyaddii kala wareegi lahaa hadday noqon lahayd inay dadka wax baraan hadday noqon lahayd inay dadka wacdiyaan hadday noqon lahayd inay fatwo dhiibaan oo la helo gabar la soo waco gabdhuhu soo wacan meel kasta oo la yiraahdo arrintaas jirta walaalay ka waran oo tiraahdo arrintaasu diin ahaan waa xalaal ama waa xaraam oo gabdhuhu iyagoon dhib dareemayn dad ay la xiriiri karaan oo khibrad dhammaystiran u la cilmiga wiilasha sidoo kale aad iyo aad ayaan idinku mahad celinaa adinka oo dhan ama ha ahaadeen waalidkii ilmahan ku soo tiiriyo tacabbeele oo soo dhiirigeliyey oo u suurtageliyey inay wax bartaan ha noqdeen macallimiintii ha noqdeen maamulkii Zaylici ha noqdeen runtii dhalinyaradii iyaga facood laga yaabo inaysan diin iyo adduunyo midna hayn dhalinyaradii inta ka soo go'een iyagoo waxbarashadoodii kala wata haddana diintoodii sidaan u bartay ha noqdeen dhammaantiin waa salaamantihiin khayr badan ayaan idin rajaynaa iyo mustaqbal fiican asalaamu calaykum hadda waxaan ku xujinayaa sheekh Abdulwali insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم أما بعد حنو مرينا يا wiilkii ugu yaraa un baa haray inuu hadlo odayaashii hadday dhammaadeen oo warkoodii ay bogteen oday hadduu hadla haddii warkii waa dhammaynaya wax ii harayba oon ka hadlo meesha ma yaallan karayaa runtii ilaahay baa mahad iska leh kulankan farxadda leh ee maanta isugu yimid bacda xamdillaahi caza wajalla waxaan u mahad celinayaa sheekhana alfaadil sheekh cabdiraxmaan abyad oo runtii u ahaa akaademiyadan iyo khayrkan iyo nicmadan bayska u ahaa sababta bacda allaahina lahaa hadday tahay tawjiihin iyo ta'siis iyo juhdiba uma walaaladii maamulka habeen iyo maalinba u taagnaa akaademiyadda maamulkeeda wiilal iyo gabdhaba leh oo runtii aan juhdi hakran oo wakhtigoodii iyo caqligoodii wax badan geliyey waa ku mahadsan yihin iyagana mahad baa u sugnaatay ardada qiimaha badan mahad qaali ah bay mudan yihiin runtii oo u sabray iyaga oo duruufo badan tacliim badan wadamo badan ama deegaano iyo gobollo kale fogfog iyo magaalooyin kale fog intaa wakhtigoodii gelinayay ilaahay subxaana wa tacaala dhammaan waalidkii ka qayb qaatay iyo intii garabka ku siisayba dhammaan miisaanka xasanadka allah ugu daro intaa kadib runtii wixii ka dhacay Zaylici Academy lama soo koobi karo laakiin erayo yar oo kooban baan rabaa inaan ka dhaho kow waa dardaaran cilmi badan iyo aqoon badan baad xambaarteen aqoontaa la xambaaray waa mas-uuliyad waay mana dhammaanin oo aqoontu ma dhammaato wamaa uutiitu min alcilmi ilaa qaliilan marka waxaa loo baahan yahay in aqoontii la siyaadsado oo la badsado وقل رب زدني علما آيادي الآخرين يبقى كمدا توا مدو مدى اللباد صبر يجكسيمه أيام دردار ما يمحايا لي ودده هرمركا أتكسو عتان إنع ديميد يدينع مادي يدينع الدنيا يدينع آخرة با
صبر يجكسي ما يبهنتها يدلقات وتي مركي خضر عليه السلام مركي يا موسى نبي موسى عليه السلام مركي كل ما النبي موسى يسوى أرضي هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا عكيري قال إنك لن تستطيع معي صبرا وتي مركي دمويري ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا صبر بد يقوك توانجك سنين وأنا مدة هرمرك اللي جار محيا لي قفك الدونة الدرجة سرع وحوي وإنه واحد بدن وصبرا لا تحسب المجد تمرا أنت آكله لن تبلغ المجد حتى تعلق الصبر إلى واحد خرار وقفكم متصدق وإبقوا مرة وكذا إنه مركز هرمرك الجاري مركز وضدي هرمرك هذا يسمى من الدنيا من آخرها إن أوجك ستان وان دردار ميا دردارن كقدام بيا أرض الزينعي أو دردار ميو مسؤولية ده إني حمباران ووقتي مسؤولية ده أقولتن إني جدبيان ومدة إني أنفعان ومدة مسلم كي ومدة أن مسلم كأهين بيدول كان لوجي مت أنت بحقوق بين يقوليه جالية ده مسلم كان حقوق بين يقوليه ومدة أن مسلم كأهين وضن كان يقول مت إيه جانا حقوق ده بدن نقوله أنت بحقوق ده إلا جوته لا أنفع إيه جانا مسؤولية داس إلا قادنا وان دردار ميا توا أرضي dadka kale magaalooyinka kale Scandinavian-ka ama wadamada kale ee Western countries-kaba ee jaaliyadka muslimka ay ku nool yihiin gaar ahaan jaaliyadda Soomaaliyeed inay dayasho wanaagsan ka dhigtaan nidaamyada noocan iyo systemka noocan inay naqliyaan oo la faafiyo oo la gudbiyo waxyaalahan arkay waxa kamid ah walaalayaal oo raba inaan yara ifiyo nooca ardada ma aha arday maxaa la yiraahdaa aan aqoon lahayn ama wax soo baran sida uu Sheekh Abdulrahmaan ba uu sheegay waa arday isugu jiro qaar secondariyadii ka baxaya qaar jaamacadii ku jira qaar jaamacadii dhamaystay qaar masterkii ku jira qaar dhamaystay qaar PhD wada qaar PhD dhameeyay intaasoo nooc bay isugu jiraan haddana waxay wax u wada baranayaan kaanama iyagoo siman hambalnimada iyo tawaaduca iyo maxabada iyo isjaceelka iyo iswadashadu waxa weeye waa jawi oo qof walba runtii u xiisay waxyaalaha yaab kale waxa kamid ah aqoonta ay baranayaan ma aha hal fanni waa noocyo kala duwan oo funuunta shariicada kamid ah haddana kaaga darankii waa dabaqayaan waxa weeye waxay soo qadimayaan graduation thesis-kii ama qalin jabintii baxthigii lagu qalin jabin lahaa ayay soo gudbinayaan isagoo luqado kala duwan ku qoran carabi bay qaar ku qoreen iyagoo aan carabi halkan ugu horreysay waxyaab leh qaar baa waxa weeye af danishkii ku qoray qaar baa af english ku qoray qaar baa cajabka soomaali ku qoray iyagoo soomaaliyana aan arag ama aan ku dhalan waxyaalaha naga yaabiyey bay ahayd markaasaa la leeyahay wadamadii waa lagu dhashay af soomaali baan ku kari laanaa ilmihii qaarna waxay marayaan inay ku qoraan graduation thesis-koodii inay ku qoraan maxaa la yidhaha af soomaali inay ku qoraan waxyaalaha yaab kale oo in la naqliyo oo laga sheekeeyo u baahan waxaa weeye in runtii waxa ay dabaqayaan wax practicalitygeena khuseeya ama nolosheenna iyo waaqiceenna iyo environmentgeena xiriir la leh tusaalayaasha cajabta leh waxaa ka mid ah gabdhaha qaarkood baxthi ay sameeyeen wuxuu xiriir la lahaa ciyaalkan iyo wadamadan sida loogu barbaariyo loo tarbiyeeyo waxay sameeyeen interview ama waraysiba waxay ka qaadeen hooyooyin guryaha ugu tageen waxay tageen iskuulaadkii macallimiin bay waraysteen waxay waraysteen mentoriska ama dadkan haga ardada iyo counselinka iyo qaabilsan bay waraysteen intaasoo waraysi kadib bay waxay ka soo saareen themes ay ku wacyigelinayaan waalidkii wadamadan ku barbaaray oo 3 theme runtii muhiim ahaa baan ka xasuustaa oo ah in maxaa la yiraahdaa responsibility-ga in la dareemo waalidka inuu yahay identity-gooda ama hawiyadooda iyo nationality-ga ay wataan oo dhaqan iyo culture inay dareemaan ay fahansan yihiin aqoonta iyo barbaarintana ay leeyihiin cilmigaasay gaareen conclusion-ka qaar kale oo dhalinyarta ka mid ah shakiga diimeed ee wadamadan ku badan ayay waxay ka soo sameeyeen cilmi baaris meydani ah kadibna xuluul iyo iqnaac dadkii lagu qancin karay gaareen waxyaalo badan oo runtii qaar baa waxay ka hadleen acapella iyo maxaa la yiraahdaa musical instruments from Islamic perspective bay ka hadleen waxyaalo cajabta leh qaar baa fiqh of love ka hadlay jacaylka wadamada yaala iyo maxaa islaamka maxaa islaam maxaa xalaal maxaa يعني مواضيع عجب له وواقعي environment-ي خصوصية مسو كوبي كربحتي كاستخدام سوق هذا أرضه مد والبا مد كلا وكقيم بدين
laakiin tusaalayaal aan rabo weeyey inaan waalidka fadhiyo iyo dadka kale maqli doona dhegaysanaya inay ku cibro qaataan war wax weyn baa la qabsan karaa ummadeennana waa la badbaadin karaa ummadaha aan u nimidna waan anfici karnaa dalkina waa la anfici karaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ha naga dhigo kuwa guulaysta wajazaakum allahu khayran wasala allahuma calaa nabiyina maxamed waxaynu u joogaan labo shaksi oo runtii aada muhiim ah insha allahu doctoorkan siinaya insha allah kadibna waxaa ku xiga sheekh maxamed cawad wuxuu wadaa qayb weyna ka yahay tarjamaada tafsiirka qur-aanka af deenishka qutaaniska isbaqooya marka shaksiya muhiima weeye innaga bulshadeena muhiim u ah insha allah ugu faraxsannahay inuu inagala soo qaybo kalimaad bayna siin doonaan insha allah fadalka toorna insha allah وفضل كذلك شيخ محمد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني ليس لي كلمة بعدما تفضل به الأساتذة والمشايخ الفضلاء، لكنها من باب قول الإمام الشافعي: أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة. فأنا ألقي هذه الكلمة أتمسح بهؤلاء الأفاضل لعل الله أن يكتب لي سهما معهم، فأقول قد فزت وحصلت على الأجر. عندي رسالة أو بشارة. البشارة الأولى لهؤلاء الأساتذة الكرام وهؤلاء المشايخ الفضلاء الذين بنوا هذا الصرح العظيم، هنيئا لهم. بشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأراضين حتى النملة في جحرها حتى الحيتان في البحار ليصلون على معلم الناس الخير. هنيئا لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. هنيئا لهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما، وفي رواية: من علم هدى، فله أجر من عمل به لا ينقص من أجر العامل شيء. هنيئا لهم أن يكتب ذلك كله في ميزان حسناتهم، وهذا خير ما يحصله الإنسان في هذه الحياة الدنيا، أن يجد له عملا صالحا في الآخرة لم يعمله، وإنما أدرج في عمله بسبب تعليم جيل أو مجموعة من الخير، ثم من عمل به بعد ذلك إلى يوم القيامة يكون في أجر من علم ذلك العلم الأول. البشارة الثانية لهؤلاء الذين من الله عليهم بالتخرج من هذا المعهد: هنيئا لكم أن وفقكم الله جل وعلا واختاركم من بين كثير من الشباب لتلتحقوا بهذا العمل الخير. طلب العلم ليس أمرا دنيويا، وإنما هو أمر شرعي يثاب عليه المرء. واختيار الله لكم من بين كثير من الشباب الذين يضيعون أوقاتهم وأعمارهم فيما لا يعود عليهم بالنفع هو دليل على محبة الله لكم، وهو طريقكم إلى الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه النعمة العظيمة يجب عليكم شكرها، وإلا زالت عنكم، وشكرها لن يكون إلا بطريقين: الطريق الأول العمل بما علمتم، وإلا لم يكن لهذا العلم فائدة. والطريق الثاني أن تنشروا هذا العلم لأولادكم، لإخوانكم، لأسركم، لمن تعرفونه من المسلمين، فإن الله جل وعلا سينفعكم بذلك وسيكتب أجر من علمتموه
لنرجع مرة أخرى إلى تلك البشارة الأولى. لا أريد أن أطيل عليكم، لكن أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم. والحمد لله رب العالمين أن وفقني الله لحضور مثل هذا الحفل الكريم، وأسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا جميعا الأجر والمثوبة. صلى الله وسلم على نبينا محمد. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jeg vil tale på dansk, fordi vores sheikh har allerede talt om mange gode ting på arabisk, og han er også mere kyndig. Men det var, jeg vil gerne sige til jer, at jeg var meget overrasket over, at det er så mange dejlige ansigter, gode mennesker er samlet sammen, og de har det samme mål. MashaAllah. Jeg kunne godt se udholdenhed. Sabr. Det at lære noget om islam, det kræver sabr, det kræver tålmodighed. Og det har I, MashaAllah, kunnet overkomme. Og det vil jeg sige meget tillykke til jer. Og I skal blive ved med at gå den her rigtige vej. Lige meget hvad I møder af hindringer i det samfund, vi lever i. Vi skal også holde vores andre forpligtelser. Så MashaAllah, Allah må give jer endnu mere styrke. Og inshallah, vi ses ved andre lejligheder. Og jeg vil meget glæde mig til at møde nogle af jer endnu en gang, inshallah. Shukran. Vi siger også tak til ham, inshallah. En meget vigtig person. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم احينا على سنته وتوفنا على ملته وادخلنا مدخله وارزقنا شفاعته وارزقنا حوضه وارزقنا من يده الشريفه شربة لا نظمأ بعدها ابدا. Jeg har ikke nogen at sige for mig, at jeg er rigtig stolt, og jeg vil organisere. Jeg har aldrig forventet, at det skal så meget, inshallah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala giver jer succesfuld på alt, og Allah subhanahu wa ta'ala modtager jeres arbejde, og inshallah vi samles inshallah i jannat, som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salam alaikum. جزاك الله خير. تفضل كلمة إن شاء الله تعالى وحنكسر كوب دولار دوميها بس التوحيد لكم هيك إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعاد بنفرح سنة رمتي على سوق بكرين. إلهي سبحانه وتعالى mahadnaqi kadib waxaan u mahadnaqayaa culimada nagala soo qayb gashay dowradan iyo imtixaanka xiritaankiisii. waxaan u mahadnaqayaa maamulka Zaylici, jazaahumullahu khayr wa barakallahu fiihim. waxaan u mahadnaqayaa ardayda juhuudda soo bixisay ee gabdhihii wiilalba leh ee waqtiga badan runtii ku bixiyey. waxaan u mahadnaqayaa hooyooyinka iyo waalidiinta aabayaasha carruurtan iyo dhallinyaratan dhabarku u ahaa oo tiirku u ahaa. waxaan u istaagay keliya oon kelmadda u qaatay insha allahu tacaala inaan ii mahadnaqo kulligiin. sharaf bay noo ahayd runtii magaalada Copenhagen iyo masjid tawxiidba inuu idin soo dhaweeyo oo aad dowrada aad ku dhamaysiin, seexatiin, ku qaadatiin imtixaanka. wixii aan ka gaabina insha allahu tacaala waa noo safraysiin insha allahu tacaala, waana noogu ducaynaysiin. wixii aanu insha allahu tacaala aan awoodnay ee soo dhaweyn ahna waan siinay, waana samaynay insha allahu tacaala. waxaanan ka codsanaynaa idaarada insha allahu tacaala inaan insha allahu tacaala meel ka fiican heli doonin insha allah oo noo soo noqon doontiin biidn illah safarada dambana. waxaan marka rabaa inaan ku baraarujiyo risaalo halkan inaan ka tuuro oo aan idhaahdo waalidiinta iyo maraakistaba, meeshaan waa meeshii investment lagu samayn lahaa, waa meeshii dhaqaalo la gelin lahaa, waa meeshii dhawr loo noqon lahaa nimanka dhallinyarada ee juhuudda bixinaya. waa inaan dhinac istaagnaa oo garab istaagnaa
oo aan u furnaa albaabada oon u furnaa jawaabkan u furnaa insha allahu tacaala sababtoo ah waa ayaga walaalayaal waad u jeedinoo nuurka ah quruxda badan runtii masaajidka hadda intay joogeen yacni waxaan dareemaynay iimaaniyaad aad iyo aad u qiimo badan gabdho tacliim baranaya wiilal tacliim baranaya qur-aankii tanawuc marba habeenba midna tujinayo runtii waxay ahayd maalmo aad u qiimo badan oo aanu dareennay mar labaadna waynu ku soo celinaynaa insha allahu tacaala noo soo noqda waxaan u yeerayaa guddoomiyaha masjidka insha allah guddoomiyaha zaylici halkaas soo istaag insha allahu tacaala masjid tawxiid wuu bilaabayaa insha allahu tacaala waalidiinta iyo maraakista kalena waxaan rajaynayaa inay ku daydaan waxaan insha allahu tacaala khasnada zaylici ku kabaynaa hadiyad insha allahu tacaala aanu guddoonsiinayno zaylici biidni illahi alkariim waxay ahayd inaanu xaflaadka dhan wada bixino laakiin insha allah tacala waxaan rabnaa inay maraakistuna ku daydaan waalidkuna ku daydaan ayna investment ku darsadaan insha allahu tacaala gudoomiye halkan soo istaa insha allah jazaaka allah khayr boqshadaan waxbaa ku jira insha allah caruusyada markas tawxiid ka dhacaa baanu boqshad siin jirnay nin dhalinyaro ah oo meelaha hadda fadhiya ragga koofiyadda qaatay ah baa ii yimid wuxuu yidhi warniyahow aniga halkaanaan ku guursaday boqshadaana liima siin ragna markiska waa la siiyey hadda xagga dhawood waan joogay rag hoolasha ku dhigtayna waa la siiyey macnaha ay ragga iga fiican yihiin mise gabadheeda gabdhaha ka fiican buu yidhi marka waxaan nidhi marka taasi hadday dhacday adaa la dhuuntay horta noo soo sheegine hadda markaa zaylici insha allahu tacaala hadduu i maqlayo zaylici baan insha allahu taala boqshada siinayna insha allahu tacaala biidni illahi alkariim jazaaka allahu khayr gudoomiye naga guddoon insha allahu tacaala lacag baa ku jirta aanu ku kabayna insha allahu tacaala zaylici maraakista iyo hooyinka iyo aabayaasha waxaan rajaynayna insha allahu tacaala inay albaabadan u furaan jeebkan u furaan aad baad mahadsantahay jazakum allah khayr wabaaraka allah fiikum masjid tawxiid iyo cabdiwahaab aad baad mahadsantahay insha allahu tacaala hadiyadiina qayimka iyo soo dhaweynteed soo dhaweyseen markaan taxaamadan ku jirnay intaas kadib insha allahu tacaala waxaan toos u galaynaa abaalmarintii iyo shahaadooyinka insha allahu tacaala qaabkuna abaalmarinayna waxaa weeye abaalmarino shaksi ah ayaan ku hormaraynaa insha allahu tacaala kadibna shahaadooyinku way dambayn doonaan abaalmarinta waxaan ku maraynaa insha allahu tacaala hooyooyin waxaa jira waxaa la dhihi jiray ardayda ka mid ah oo ilmahooda soo kaxaysan jiray oo dadaali jiray hooyooyinka insha allahu tacaala ayaan rabnaa si khaasa maaragtay in aanu shahaado u siino insha allah hooyooyinkaas markaan kolba mid u yeero insha allahu tacaala way soo istaageen dhinacaas safay ka bilaabaysa insha allah waxaan ku bilaabi hooyo la yidhaahdo amiira muuse oo nooga timid meel fog sweden nooga timid insha allahu tacaala xagga ha istaagtaa loo geeya insha allah waxaan ku xijinaya hooyada labaad waxaa weeye hooyo ifraax cabdullahi xambali xagga istaagta insha allah hooyooyinkana hadda sheeg hooyooyinkana ka duwan yihiin culamada garanayseen tobanka beri aan seexanaynin iskuulka wax la baranayay carruurtooda way haysteen meesha soo qaadan jireen marka hooyooyin lala yaabay ahaayeen hooyada ku xigta hooyo warsan cabdullaahi hooyada saddexaad camiina haras saf in la istaagaan rabaa hooyooyinka insha allah in ku noqon booskooda xagga la istaago hooyada ku xigta hilaal sheekh cusmaan hooyo hilaal sheekh cusmaan hooyada ku xigto hooyo ilhaan gurxan hooyada ku xigta hooyo hodan cabdicasiis hooyada ku xigta saciido faarax
hooyada ku xigta waxaa la yidhahdaa hooyo xayaat xasan. hooyada ku sii xigta hooyo dunya axmed cali. hooyada ku sii xigta hooyo muuna maxamed. hooyada ku sii xigta waa hooyo faadimo ama faatima nasteexa caabi. intaasoo hooye aad aragtaan iskuulka 2 sano ay dhammeeyeen, dowraadkaan dhigan jirnay, duruustaan dhigan jirnay iyagoo ilmahooda haysta waxaa la dhihi jiray waxbarta ayaa waxaa la jiray hooyo ilmahooda soo kaysan jireen. waxaa lahaada hooyo qiimo badan ay loobay, waxaa loo iloobo waxa ugu qiimo badanta meesha hooyo maryan cabdisaaq. هاي صوت حاجة وحنوجد بينا كوحدة وخطر هو يكلمنا هذا هلا هذا وكسرنا إن شاء الله هوي وحنكوحينا يا كوح كلا كوحدة مهم سن نظم عشان سمع كوحدة صوص عطوا كوحدة شعيل كوي kooxda jacaylka waa koox meeshan bay iska arkoodeen wayna isku guursadeen. haye waxaan ku bilaabay insha allah axmed iyo xayaat. axmed iyo xayaat waxaan jeclaa inaad ku noqotaan booska ma rabin, waxaa yeelay hadhow shahaadooyinkan aan qaybinaan rabnay, marka booskiina ku noqdo insha allah. meeshiina istaaga, qofkaas meesha istaaga insha allah. waxaan ku xijinayaa kooxda kale khaalid sheekh maxamuud iyo muno maxamed. meeshiina istaaga insha allah. safka haliya ayaa lagu noqon fadhiga. haye jacaylka ku xiga iyagana waa kuwa iska helay meeshan, waa kuwii ugu duumay amlaynayaa. nasra iyo cabdirasaaq. nasra soo istaagto, cabdirasaaq soo istaaga insha allah. gudi cabdirasaaq. haye midka ugu dambeeya waa atooraha maaragtay jacaylka. nimankanoo dhan waa ninka baray taktiga loo shukaansado gabdhaha maaragtay. ninkaas wuu isgaranaya markaa soo istaaga insha allah. intaan magaciisa kor u sheega iska soo istaago, haddii kale dadkaan kugu sheegaya. soo istaag, soo istaagdee war ninkaas soo istaago. haye axmed xuseen soo istaag. axmed xuseen iyo maryam faarax. waxaan mar kale 3 qof oo kale oo special ah ayaan abaal marin doonaa insha allah. qofka kale waxaa weeye gabadh la yidhaahdo maryan cabdirasaaq oo iska lahayd fikradda ugu fiican iskuulka 2 sano. fikraddaasoo ahayd waxay noo keentay fikradda la yidhaahdo maadaama aan iskuulka 2 sano dhiganno aan isla soconno aan samayno waxaa la dhihi jiray wax la yidhaahdo hal camal aan isla qabanno, camal islaami ah. maxaynu qabanaynaa? aynu ceel qodno. ardaydan hadda meesha joogto ceel bay ka qodeen meel Hargeysa u dhow. marka gabadhii fikradda keentay ka shaqaysay ee ardayda u soo bandhigtay insha Allah taala ayaanu siinaynaa Maryam Cabdirasaaq insha Allah. gabdhaha u subciyeen.
haye laba qof hay dhiban labada qof waxa weeye gabadha loogu jecel yahay ardayda gabadha ugu activesan gabadha ugu dadaalka badan gabadha ma aragtay mudan in lagu daydo gabdhaha kale ay ku daydaan waa gabadha magacan haddan akhrin doono insha allahu tacaala gabadhaas soo istaagto Juwayriya Faarax gabadhan kale aan siin doono insha allah waxaa weeye waa gabadh duruustaan dhiganaynay talaqiyadaan dhiganaynay waxyar suga waa gabadha ugu goysgoyska yar markii goysgoyska ardayda yani ardayda goys baa loo sameeyaa waa gabadha maaragtay way soo taagneed un darsi walba la dhigay way soo taagan tahay gabadhaas waxaan niri marka inaan abaalmarin aan siino insha allahu tacaala gabar yar waxaan malayna gabdhaha ugu yar bay ka mid tahay meesha gabadha waxaa la yidhahdaa Fortuna Makaak intaas kadib waxaad isoo qabataa carruur haye waxaan ku hormarin insha allahu tacaala wiilasha inta dhiman koraa soo fuulaan waxaan ku hormarinaa insha allahu taala abaalmarinta sii wadaya waxaan ku hormari ardayda imtixaamadii aan galayna tartamay galeen tartamii haddaan idiin sheegayay yaa cumrada qaaday yaa lamar laba noqday lamar saddex noqday kuwii ayaan insha allah geli doonaa insha allah labada kooxba waxaan ka bilaabi kooxda waaweyn dufcadii hore insha allah waxaan ka bilaabayaa qofka gale lamar saddex kooxda waaweyn lamar saddex horta sideeda waxaan ii sheegayaa gabdhaha wiila tartan bay ku jiraan magaalo tartan baa loogu jiraa wiilasha dhexdooda tartan bay ku jiraan kooxda marka labaad ama kooxda waaweyneyd haddaan ku bilaabo lambar saddex waxaa gashay gabar baa gashay horta gabadha waxaa la yidhahdaa Faadma Cabdiweli أيوة gabadha ku xigta gabar kale ku xigta horta waxa weeye maya waa laba kooxood wey kuwa kale waxaad siin doontaa insha allah qofka galay labaad waxa weeye gabar la yidhaahdo Saciida Faarax ma joogto laakiin ha loo qaado insha allah lambar kow waxaa galay marka yaa galay lambar kow waxaa galay maxaa cabdisaaq takbiir soo istaag maxamed u dhiib insha allah maya mid waa laba kooxood wey maxaa cabdisaaq la siiyey insha allah tacaala wuxuu ku guulaystay cumro furan oo marka hore uu bixi karo insha allah هيا كوحدة كلا نقلها كوحدة كلا سيدي صفك كبلابا سيدي مركي لما رصدح حاجة شيء قبض أصبح لي هذا أقول من الفوق لغة مدوي ما قاعد علي هذا أسمع عبد الرزاق مهدي لمر لبا يا قال لمر لبا
لما وحاجة شيء جويرية فرح اوكي ان شاء الله دي لمبر سدح أصدق له عمرة كو عفوا لمبر كو حق لي ونن وحلي شري وحليه مارتي محلها قاو فربان بكوي ماذا مر أباه جعل بكوي ماذا مر أباه شكانس بكوي ماذا وحلي شري وحيل برضو ليه مر نكوا خطر سنة نكوا وقع سؤالي لا أسكر قرني تصبح حيث استقدر إحنا عبد القادر أيا كو قلي marka Axmed Qaadirna wuxuu raayay umro furan isagana sidoo kale insha Allah waxaan abaalmarinayaa mar kale waxaa la dhihi jiray arday waxaa la dhihi jiray ardayda kale aad u soo caawiyey ardaygaasna waxaa magaciisa la yiraahdaa Farxaan soo dhow Farxaan dhinaca gabdhaha sidoo kale ardayda kale oo ardayda aad u soo caawisay macluumaad ardayda waxaa la dhahaa Farxiye Cabdullaahi Facaad sidoo kale abaalmarin kale waxaan u siinaynaa insha Allah u garanay waxa la yiraahdo hooyo ku dayasho mudan hooyadaas waxa la yiraahdaa Amiira oo naga timid Sweden sidoo kale hooyo kale ku dayasho mudan waxa weeye yani hooyada ugu aktifsan weeye يا إيمان هو يا إيمان أيوب أم أيوب هو إذا كلام أبو المرين إن شاء الله تعالى كذا يشهد مضن وهو هذا عبد العزيز markale waxna abaalmarinayna insha Allah ta'ala gabadhii waxa la dhigi jiray mar walba soo taagneed ma xustaan fartuuna makaaga insha Allah ta'ala ay isoo barka hay fadhi kan qoran kala qoran haye mar kale insha Allah abaalmarin kale ardayga ugu fikradda fiicnayd Maryam Cabdirasaaq Loge insha Allah way ma garan haye waxaan sidoo kale abaalmarinayna insha Allah ta'ala laba hooyo oo ardayda kamid ma aha laakiin waxa weeye sida kale naga mid weeyeen hooyinka waxa weeye hooyooyin intii aan labadii sano aan joognay aan qaadanayna iskuulka labada sano noo sameyn jiray maaragtay
nala joogay oo nadaafadda na caawin jiray cunto noo samayn jiray shaqo fara badan noo qabtay ayaan rabnaa inaan abaal marin labada hooyo insha allahu tacaala si hooyooyinka kalena ay u daydaan insha allah haddaan ku bilaabo hooyada koowaad hooyo firdowso cabdulaahi aadan halooge insha allah soo istaagto hooyada kale mudan inay hooyooyinka waddanka degan ay ku daydaan waa hooyo sacadiye xaaji kuwaana iisoo wada qaada meesha iisoo saara kolba iisoo diba haye waxaan sidoo kale okay u dhaliib insha allah arday waxaa jirta aan u bixinay zaylaci baan caruurta zaylaci caruurta waxaa weeye hooyooyinkan aan hadda abaal marinaynay caruurtooda ee talaqiga imaan jiray ayaan rabnaa abaal marinay insha allahu tacaala waxbadan ugu yeeri doona hadiyadoodan siin doona insha allah qofka ugu horeeya waxaa weeye gabadh la yidhaahdo horta gabadha hadiyad bay igu lahaydba dayn bay igu lahayd haddaan u yeero wax ka baqaya inaad na nacigeysay aad berigii iga balan qaaday gabadha waxaa la yidhahdaa aragsan maxamuud ha soo istaagta insha allah aw aragsan ha loo qaado insha allah hadii joogin midda ku xigta qofka ku xiga asmaa cabdiraxmaan cumar ha loo sobciyo insha allah loo sobciyo wiilashan allah umar ha dhaawa soo istaagto xiranay caruurta soo istaagaan ha qaataan iyaga insha allah hana soo dhaqsadaan ilmaha ku xiga waxaa weeye qof ama qof ku xiga salaaxudiin cabdifataax ha loo subciya gabdha u subciya insha allah ama u sacbiya insha allah sucudkii qur-aanku haawe haye gabadha ku xigta asmaa maxamed ha timaado gabadha ku xigta caaisha sharmaarke axmed caaisha sharmaarke soo istaag durba insha allah gabadha ku xigta aasiya maxamed آسيا محمد gabadha ku xigta Aasiya Sharmaarke wiil baa ku xiga waxaa la yidhahdaa Bilaal Jamaal Cabdishakuur ma joogaan ha loo qaado bisho insha allah ma jooga okay waxaa ku xiga Maxamed Amiin Mukhtaar waxaa ku xiga Layth aw Layth admiya aye Sheikh Ayub away Sheikh Ayub baa ku xiga
waxaa ku xiga imraan samiir waxaa ku xigta saynab cabdullaahi xasan waxaa ku sii xigta safaa cabdullaahi xasan waxaa ku sii xiga sayid cali cabdifataax sayid cali udhib waxaa ku sii xiga sheekh mucaad waxaa ku xiga xanad mukhtaar xaggaas lagama subcinaya malaynaya markaan carruurta siiya si fiican loo subciyo welishana allahu akbar ha la yidhahdo warsame maxamed aadan warsame takbiir waxaa ku xigta jinaan waxaa loo geeyay jinaan insha allah waxaa ugu dambeeya insha allah rayaan sharmaarke axmed haye sheekh soma haye ha insha allah yaan ku bilaabina waxaan ku bilaabay insha allah taala mashaayikhda ayaanu hadiyadooda siin doonaa insha allah waxbada usoo saajishan doona iyagana insha allah hadiyadda koobaad sheekhaan jecelnahay sheekh cabdiraxmaan sheekh abyad sheekh cabdiraxmaan abyad soo istaaga insha allah تكبير شغل ماشي هاي waxaan ku xijinaa insha Allah taala sheekhana sheekh Usmaan Ali oo isagana sidoo kale jecelnahay soo istaaga insha Allah أي واحد كل شيء إن شاء الله تعالى الشيخ عبد الولي محمد هاي واحد كل شيء إن شاء الله دكتور هوري هاي أنا دعاء صفتنا أرضي ضلنا سود استجن مركز أرضي لو يريو قبله أرضي ممكن لو يريو وصادق أشياء وكقاعدنا ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سكر دواء أرضي استقلت في شهادة اللي سيو بهاي هاي. مركا ولا قالوا ريجي يعطوا حكي بلاد ميكروفون إن شاء الله. أنا جاي دكتور محمود باك بحث سينا هنا. الله دكتور روح سين دونان. إنه ماضي إن شاء الله مركا بعد ما قبله بديه. مركا أنا لباس صدق حكي بلودي يرينا بقى. مركا أنا لباس قبلها رقم حياله من قبله مباه. بس دوما فينا قد كتاجنا العمار من هاي ويرينا يا دكتور كنا وصين دونا إن شاء الله. بسم الله. دنيا أحمد علي دنيا أحمد علي دنيا ما هذا دنيا ما شوفتها مثلا طيب ما شاء الله دنيا جزاك الله خير بارك الله فيك دنيا فرتون عبد الله أمكاك فرتون ير
ما شاء الله فرتون على الأبد خير الله تسيه ممتاز ما شاء الله. إيمان حسن موسى إيمان ما شاء الله ممتاز. نعيمة محمد عقلي نعيمة محمد عقلي نعيمة وحوق هذه نعيمة ولمية نعيمة ما شاء الله قبل كلا كام غلط فرحين خضراء ما شاء الله. قبل ناس إيه المقدرة وحن كفائدي هذا علماء كان الله يقدر يدوران كل أنا علم أنا مقلب أنا كفائدي لكن علماء يقدر يدوران إن شاء الله وأنا وش يعني قبل واحد حكى موضوع اللي يرادو الروad وفي إنجليز كقرن الطريق وحكى لي qoysaska iyo sidii ku hagaagi karaan iyo burburka qoyska waxyaalaha keenayo aayadda fasirtay aayadii fi suurata baqara ka hadlaysay ragga iyo dumarku inay isu yihiin dhar waxay tiri aayadda waxa laga fahmayaa aan waa fahamkan ka hadlay waxa laga fahmayaa bay tiri marka koowaad dhar markaad ibsanayso magaalada galaysa dhar cusub oo aad ku cajabiyay oo aad goyn kartaa aad soo ibsanaysaa kaas waa khiyaarka koowaad doorashada koowaad inay aad uga fiirsato dharku waa wasaqooba waa duugooba waa jactada lama tuuree waa la maydhaa waa la kaawideeyaa meel baa la dhigay kadib baa la gashadaa haddana mar kale noloshu markaa waxay u baahan tahay in sidaa oo loo cusboonaysiiyo ila way jactadaysaa oo iskagaysaa oo wax badan baa ku dhacayeen كل أنا أفكر كم أنا الماضي يجي شيء ترى إن شاء الله لكن فهم كم أنا لما كل من إن شاء الله ما شاء الله واحد كلنا وقف أيدي عيد كلام الله هل كل معناه ما أقول معناه كاملين طيب ويقوم قرأ ما شاء الله أسمى نمع علاد عمر أسمى ما شاء الله أسماء ودوا عليه ما شاء الله أسماء كل وانا مرتاح كلا رجال لا حاجة ولا دقيقة إن شاء الله أرضي وضعنا هاي منى خالد أحمد سمنا منى خالد أحمد ما شاء الله ما شاء الله نصيب عبد الناصر محمود ما حلقت لنا نيس عجب ما شاء الله نصيب الله يحفظك قبل الدور هو ولا لا هو مع التلفزيون على عجب ما شاء الله يرحم بركيه آمنة أحمد حرس آمنة ما شاء الله آمنة ما شاء الله أيان علي جامع أيان شعبي يضرب بلاده ما شاء الله أيان علي جامع ما شاء الله أيان مبروك شكري علي دول شكري ما شاء الله شكري مبروك لقوا بقرن ما شكري ما انت قالي عبد القادر إبراهيم قالي ما شاء الله جويرية فارح جوهرية جويرية ما شاء الله ممتاز جويرية أميرة محمود موسى أميرة ما شاء الله أميرة وأنا نورتني سودا سلمى عبد الله حنبلي عبد الله حنبلي جابتني سوري سلمى عبد الله حنبلي ما شاء الله تفضل سلمى مبروك إن شاء الله منى محمود عبدي منى محمد عبدي منى محمد عبدي ها منى ما شاء الله فضربت منى ما شاء الله مبروك نعيمة ورسام النور
نعيم وأستاذ نور. فاطمة نصيح عبدي. فاطمة نصيح عبدي. فاطمة نصيح عبدي. ما شاء الله. أرضي هروية فاطمة ما شاء الله. عائشة محمود آدم. مبروك عائشة ما شاء الله. فاطمة أحمد محمد. فاطمة ما شاء الله. شكري محمد شيدانة. ما شاء الله شكري ما شاء الله ممتاز. شكري وقبلها قرآن لذو ذا dadka dhan baa u baahan waxay u baahan yihiin inay si dadka dhan ugu fidiyaan insha Allah ma sha Allah mumtaz. Muna Muhammad Jibril Aadiya ma sha Allah. Muna ma sha Allah. Maryama Mahad Farah. qoftani waxay tarjantay naxwadii ajrumiyada dhan dheerish ku tarjantay si waliba casri ah oo aan niri waxa u baahan baa ummadda oo dhan iyada lafteeda insha Allah mumtaaz ma sha Allah. Ilhan Ahmed Burhan. ما شاء الله إلهام. حوضن عبد العزيز شيخ نور. هذا ما شاء الله شيخ هذا ممتاز. هذا آمنة عبد السلام حسن. ما شاء الله آمنة. ليلى محمود. ليلى محمد. ليلى محمد. ليلى محمد. محمد لو غير كذا. اوكي. سهرمونا محمد علي. ما شاء الله ما شاء الله مبروك جزاك الله خير. فرحية علي حسين. فرحية ما شاء الله ممتاز. فرحية. أيان عبد السلام ديرية. ما شاء الله أيان ممتاز ما شاء الله. إيمان محمد فارح. إيمان محمد فارح ما شاء الله. إيمان مبروك ما شاء الله ممتاز. إيمان جزاك الله خير. بشارة عبد الناصر محمود. عجب ما شاء الله. جويرية عبد الرزاق محمد. ما شاء الله جويرية. فرتون عبد الحكيم إسماعيل. وابنة الشيخ عبد الحكيم إيش. مبروك إن شاء الله عنه هذا. فلسن داود إسماعيل. فلسن يا صلاقة بوق وين والتربية ده بيسوق دي ما شاء الله. بوق وين وبوق لون واحد. صفية علي حسين. صفية ما شاء الله. صفية. سمسم آدم. ها مرعيني ذي فوسده ولا بسيه حق الدور على الأرض. سعيدة فارع عيسى. شخص سعيدة نور. إذا الله قال إن شاء الله. سعيدة فارع عيسى. وأركانته وين وسيرك معك. سهرة حسين علي. سهرة حسين علي. حليمة محمد شيخ حسن. ابنة الشيخ محمود أبو طلحة. طيب. سمية علي محمد.
سمية ما شاء الله ممتاز سمية وأرضي ذي هرنوي ما شاء الله. أسمع عبد الرزاق مهدي. أسمع ما شاء الله ممتاز. أسمع حياد حسن علي ما شاء الله. وشم حياد ممتاز. حياد ما شاء الله. حنان محمود أحمد. شاخذ يدكم من هون مالك حنان ما شاء الله ممتاز. حنان. ورثا عبد الله الديرية. ورثا ما شاء الله ممتاز. ورثا من السهرة محمد علي السقط. محمد علي أحمد ما شاء الله. ميمونة عبد الله أحمد ولا الكريم تقريبا. الشيخ الضيجي والشيخ الضي معرفة واحد معكو الرقم بقى ركي سنة قبل هذا قرصانة تربى ضنا سيرد وين وبليه قصة الشيخ الواحد سنة قدام بيدا الشيخ النقر الدروس بس إن شاء الله. وأنا بدريسة سهرة عبد الناصر محمود ما شاء الله عجب مركلت على عجب ما شاء الله ممتاز. قرأ الذي يسوق الدين أرسل الله. نصرة سعيد حسن ما شاء الله. نصرة سمسم سعيد عبد الرحمن ما شاء الله. سمسم فضل ما شاء الله. سمسم مبروك. تذكر شعرين عايشة عمر عبد الرحمن. عايشة عمر ما شاء الله. عايشة ممتاز. لما قبلوا يروي هالقرآن بين سود بالدين رمتي آدي عشرية ما شاء الله. سعدية حسين ما شاء الله. سعدية مبروك. سليخة سلط معي سليخة شغل يدي ماذا بدي يرى هلا بعد ماذا ما شاء الله. سليخة مبروك. سليخة ما شاء الله. إلهان أبشر. إلهان أبشر. إلهان ما شاء الله ممتاز. إلهان الله يحفظكم جميعا. مريم عبد نور قبل المشيوي بصارنا يدا ما شاء الله. مريم مبروك. وقبله هو رمضان قبلها إلهي قبلها دعينا مرة وراه يلش ودادك كلام دعيني قبلها إلهي بركة إن شاء الله. ضد كميشن تاجني وحلك أمضوا يا مستقبل في ضدكم إلهي بركة إن شاء الله. قرية خير قبا. أولاد خير قبطة. تعليم خير قبطة. شقاق خير قبطة. وضيال خير قبا. الله أكبر أرزقه إن شاء الله تعالى. يا ورد أمي ولا قبل هذا شقوي وناكسن. تعليم في عن. وضيال في عن. أولاد خير قبطة بركة إنسان. قوسس وناكسن. إلهي قدر شو قبلها إن شاء الله. قبل الدعوة الدين تو شقينا هم قضاء. وجزاكم الله خير. عبد الشكور محمد ما شاء الله. سدوا خالد محمد شيخ حسن باقرن. شيخ محمود بغض لنا يا خالد. شيخ محمود ويه ما شاء الله. محمد إسماعيل محمد مبارك عليك. بحثيga insurance-igu maxamed wax ka qoray runtii baxthi aad u qiimo badan buu ahaa oo insurance-iga noocyadiisa kala duwan iyo ahkaamta ay leeyihiin baxthi aad noo cajabiyay buu ahaa ma sha Allah. Ahmed Yasin Muhammad ma sha Allah. ما شاء الله. Ahmed Yasin مبارك. عبد الله أحمد عبدي ما شاء الله. عبد الله تسدوا ما شاء الله جزاك الله خيرا. أحمد محمد علي ما شاء الله. أحمد محمد علي تسدوا ما شاء الله. أحمد حضارة إسلام كإيو contribution كمسلمين تأي كلها هايين human civilization أي وحكة قريرنتي بحث قيام بدن بوها بحثي هذا حسوسوي قار كان حسوسوي معناه ذو ما هاي نسم قيمة هاي. إلياس عبد الله حنبلي. إلياس يرى ما شاء الله. إلياس ومجتهد الله بركاته. رجع وجود يربو كمدي هاي. أحمد محمد عبد الرزاق. محمد عبد الرزاق
محمد هو بحي محمد رنتي والشيخ واي بحثي سؤال وقيم بدنا رنتي عجبوا لها الحاد كي شكي الديمات يصيدا لو علاجه كهذا عبد الرزاق علي الشيخ حسين عبد الرزاق علي الشيخ حسين ما شاء الله عبد الرزاق الله يكبرك يا عبد الرزاق فرحان وبري ما شاء الله شيخ فرحان وشيخ وياسنا وما شاء الله واركانته معك ويا دعوه دبا الله بركايه طلحه محمود شيخ حسن ما شاء الله طلحه الله بركايه بارك الله فيك سهيب علي محمد سهيب علي محمد ما شاء الله سهيب ومنشد كبير وي وحاوي ماشي ورق النشاطيه وي الشده مركي دنتبه عرك الجيه الله بركه سهيب ما شاء الله صوتك سمعان وادب نقول راح يستنى الله بركه ما شاء الله عبد الفتاح علي نور ما شاء الله عبد الفتاح وحوي وأسرة إياه ما شاء الله بركيتهم الله بركيه جهدي ودي دلالك وده ما شاء الله بارك الله فيكم حسين علي جامع ما شاء الله ما شاء الله حسين ما شاء الله أسنوان خير بدن الله بركيه حسين ما شاء الله تيم كهرنا وكمدي هاي أحمد عبد العزيز حسين ما شاء الله أحمد عبد العزيز الله بركيه أحمد وانينكي ما أنت الجوائز كلا دونا شيخ الكل وبتاع الكل الله بركيه هو قلك السليدر بوي هاي زبير زيد عبد الله آدم زبير ما شاء الله زبير الله بركيه وكانت يا خيارته كمدي هاي عبد غني محمد حسن ما شاء الله ما شاء الله عبد غني الله بركيه عبد غني واسنا ورقص جوائز تكون يسوي ما شاء الله وانا قد ما ضيب الرجينيه صحبة هاي لو حبا دمن قال لي هذا دي رجالين تو إنن كوضا قيب قادنا واللوبة هي قبلها محل يروي ليش الله مصعب بيه مالي يقول تكبير بس اللي فقه اسمه فقه زي لي اوكي جيد واي فقه وكسو علينا قبلها مياه قال لي هذا لما قبلود وآد مهم هو وحلوج بيجي قبان وحوي لبدا قبضود وسعدية الشيخ إبراهيم سعدية الشيخ إبراهيم ما شاء الله السلام مسكي عبد السهل محمد مسكي عبد السهل محمد ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيكم دمان وإذنهم بلياننا الله يدين بركة علم نافع خير الدنيا من الآخرة دكتور كم كرسي وريتني بسم الله الرحمن الرحيم سقر حون أو ناكسن أي شهادوين كي لقوا قاتي لكن وحنسجار أول هل لها ويلش وحنده لها قبله وحي موجيا وعذره ما شاء الله بقول كيبا سجاشن iyaga shahadooyinka qaatay waxa la rabaa insha Allah taala Zayl Academy marka labaad inaad isku daydeen inaad dhalinyaradii kala keentiin oo ugu yaraan aad 40% xataa soo noqotiin barakallahu fiik بسم الله وينو xirmaysa insha Allah taala waxa jira walaalayaal waliba dhalinyarada mar badan waan sheegay qofkii danaynaya jaamacadda islaamiga aynu Copenhagen فرعيدا كفرناي رجل الضمر قفير يقفون قفي ضنينيا ميس كاسم فدينا أنا معلمين تدان كم إذا هيفان كذا إن شاء الله قفي ضنينيا هالنوين هادو ربائن أما إسقراء أما سؤال نويديو أما أنت إنان كلتجين إن شاء الله تعالى بإذن الله وإحنا رجينا يا إنا لما أنت بعد نيسان حيالي وفرصة ونكسن هذا قيمة بدن رجل الضمر قفير يقفون إنه قدام فائدة إنه وجدت إن شاء الله مركا قرض وكيل كا يعني نقول أن كل شيء ميس كسام فدنا أرجع مركا نوجي معنا إن شاء الله جزاكم الله خير السلام عليكم وحير السوق إن شاء الله بحنا وحرويه يا أبوانك إن شاء الله هل صدق إن شاء الله قبل نقول تورد إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
ما شاء الله ما هذي كره رنتي فرحات ما هذي كره هذا الكنوار دميي أو وحوي وحرب مجران marka waxaan rabaa inaan waxa weeye tix insha Allah bismillaahir kariim aan ugu tala galay munaasabadan aan soo jeediyo waxaan la yiraahdaa saylici qofkii suuban baa soo gala waxa weeye waxayna leedahay sidan subhanahu allahayow adaa saxay adduunkan ee sameeyuhu adiga weeye oo saatir baa tahay dhulka siman adaa noo saxo saatir baa tahay samaawaadka adiga dhiso saatir baa tahay adaa saraca soo saara oo saatir baa tahay sanku neefla adiga khalqo saatir baa tahay suuradeenna adiga saxo saatir baa tahay sawjeenka adaa naga dhigo saatir baa tahay adiga na soorayo oo saatir baa tahay sanka neefta adiga marsho saatir baa tahay saxadeenna adiga baxsho saatir baa tahay sirta nolosha adiga dejo saatir baa tahay suubani adaa soo diro saatir baa tahay muslim soocan baad naga dhigto saatir baa tahay si kastaba adaa u mahadsan oo saatir baa tahay sidaan kula kulanaan allow saab ka gelinaaye saylici qofkii saylici jidkuu noo saxaa adi siraadka ee sunnada iyo qur-aanka allow lagu sargooyaayo siiradii sayidkii rasuullada ayay sahan ku raaceen oo asxaabtii waxaad siisay bay sare u qaadaan oo salafkii ayay daba socdaan saatir ehelkaaye samaanta iyo wanaagga allow lagu sargooyaayo sida qaladka loo saaro baa lagu sargooyaayo saylici qofkii suuban baa soo galoo jecele qof kastoo samaha doonayay sare u qaadaan oo sirta nolosha baa lagu bartaa saatir amarkaaye sida sagal guyoodaay ayay sahay ka qaataan oo sadka ruuxda baa laga helaa saanad qara weyn oo saad iyo waxaa laga helaa sooryo qaali ahee subxaan hadalladaaday bartaan sare u qaadaanee saxiixaynka iyo luqadda iyo suuradaha diinta sunnahiya waxaa lagu bartaa sawdkii nebigeenna sala allahu calayhi wasallam sakiinada naftaa laga helaa subag la nuugaaye samaantoo dhan baa laga helaa sooryo qaali ahee samaan hore wixii dhici jiriya saaka waxa jooga waxa soo socday kuu sifayn kuu nasaxaysaaye adduunyadan saldhigii weyday ee salowgu duulaayo sababaha badbaadada ayaa lagu sargooyaaye jid siraad inaad sibiq ku mari sababtu weeyaan jid siraad inaad sibiq ku mari sababtu weeyaane sahal inaad ku dhaaftaan xigtoy sababtu weeyaane samir iyo dulqaadkaad ka baran sabar adeeg weyne sakaraatu mawdkii markuu seefta ina saaro saaxiibka ina raacayaa lagu sargooyaaye nolol sare inaad gaadho baa lagu sargooyaaye sababaha jannada lagu galaa lagu sargooyaa sababaha jannada lagu galaa lagu sargooyaa subxaanka inaad aragto baa lagu sargooyaaye saaciido dhaba raaxadaa lagu sargooyaaye soo gaadha oo kaalayoo saadka wacan qaata soo gaadha oo kaalayoo saadka wacan qaata wasala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam jazaak allah khayran bismillah waxaynu maraynaa insha allah gabagabadii waynu dhammaynay waxaad xasuusinaya beesha feeriya dhalinyaro ama dhammaan magaasiinkan meesha yaalla oo magaasiin ardayda ay qoreen afdeenish ku qoran insha allah hore ha loo sii qaato insha allah masaajidadii guryaha la geeyo insha allahu tacaala waxaan u mahadcelinayaa dhammaan culammada ka soo qayb gashay xafladdan waalidiinta ardayda sidoo kale waxaan u mahadcelinayaa insha allahu tacaala masjid tawxiid oo si fiican noo soo dhoweeyey iyo dhammaan kulli insha allahu tacaala intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa iskuulkeeni labada sano 2016 ilaa 2018 meeshaas ayuu ku eegaya insha allah waa mar kale oo khayr badan insha allahu tacaala asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh يا لا 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 يا لا 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 يا